Ifraax waa qisada filimkeena maanta oo la magac baxay Girl from Muqdisho. Waa filim dhammaan ay la ooyeen reer Yurub madaxdoodii oo dhan fadhiga uga kaceen Ifraax Umar. Qisada filimkani waa dhacdo xaqiiqo ah oo ku dhacday Ifraax intaana inoo bilaabin qisada walaal waa codsi muuqaalka like saar kuna soo biir barteena YouTube-ka mahadsanidin. Waa Ifraax oo 8 jir ah waxa ay joogtaa gurigeedii waxayna ku ciyaaraysaa aqalka hortiisa waxayna u yeertay gabadheedii. gabadheeda ayaa u timi kadibna waxa ay tustay silis dahab ah. Ifraax waa ay faraxday waxa ayna ku tiri ayadeed soo gal aqalka laakiin waa maalinta ay qeyladeedu yeeri lahayd waxaana la gaarsiiyay nabaro ka badan inta dumarku ay la kulmaan. Halkani waa magaalada Muqdisho waana xilligii uu socday civil war-ku dhammaan dadka ku nool magaalada waxa ay ku jiraan qax. Ifraax waa ay soo ordaysaa waxayna soo dhex maraysaa suuqii markii uu bilowmay kala cararkii waxayna arkaysaa madax go'an waa isku naxaysaa ilaa ay soo orodo. Ciidamadii ka soo horjeeday dawladda iyo kuwii dawladda ayaa magaalada isugu yimi waxaana socda dagaal. Ifraax waxay ku dhuumatay halkan waxa ayna sugaysaa inay hesho fursad ay uga baxsato si ay gurigeedii u gaarto. Kadibna waxay arkaysaa in wadadu ay cidlo tahay waxa ayna soo kormaraysaa holaca iyo dabka ka shidan halkan. Ifraax waa ay ordaysaa waxayna ka cararaysaa xabadaha ilaa ay timaado xeebtan cidlada ah. Way soo ordaysaa waxayna imaanaysaa gurigeedii. kadibna waxa afartan dhinac ka soo galaya ciidamadan waxa uu u sheegaya inay halkan isaga tagto isaga iyo wiilashiisina waxa ay galayaan dagaalka. Ifraax waa ay soo cararaysaa waxayna imaanaysaa gurigii oo cidlo ah. Gurigii ayay soo gashay kadibna waxa ay furaysaa daaqada si ay u aragto waxayna arkaysaa in weli dagaaladu ay socdaan. daaqadii ayay iska xiraysaa si ay halkan ugu nabad hesho balse hal mar ayay gadaasheeda fiirsay waxayna aragtay in loo soo galay nimankan askarta ayaa u yimi. Ifraax aad ayay u cabsanaysaa ilaa ay gadaal u baxdo balse waa ay qabanayaan wayna isugu tagayaan dhammaantood ilaa ay isku turturaan mid walbana uu qabsado. Suunkii ayay u furteen. Ifraaxna halkaasi waxa uga bilaabmay qisadeedii xanuunka badnayd waa ay kufsadeen weliba si arxan daran waxayna ugu dareen jirdil. Way isaga tageen markii ay hawshii ay rabeen ay ka dhamaysteen. Ifraaxna waa ay suuxday. Ifraax waxa uu timi ayadeed waa ayna isku dul ooyayaan. aabaheedii ayadeed waxay isku dayayaan inay dajiyaan balse waxa ay dib ugu celinayaan qodobadii ay markii hore ku dhufteen kuwa ka xanuun badan. Dib ayaana loogu sameeyay gudniinkii fircooniga ahaa. Dhakhtarkan ayaa u yimi waxa uuna siinayaa cunto waxa uuna ku leeyahay waa caafimaadi doontaa. Si kadis ayuu ugu soo laabanayaa Ifraax oo jiifta waxa uuna u sheegayaa lambarka habaryarteed oo ku nool Mareykanka waxa uuna ku leeyahay waxa ay joogtaa Minnesota waa inaad iskaga tagtaa halkan sababtoo ah kuma taa nolol. Ifraax waxay u imaanaysaa ninkan mukhallaska ah kadibna waxay weydiisanaysaa inuu u waco eedadeedii ku nooleed Mareykanka. Banaanka igu sug ayuu leeyahay waa uuna la hadlayaa. eedadeedna waxay u soo diraysaa lacag wuu u imaanayaa waxa uu ku leeyahay waxaad tegaysaa Ethiopia kadibna halkaa waxaa kula kulmaysaa borderka nin mukhallas ah. ninkaas ayaa ku caawin doona kuna geyn doona meesha aad u socotid meesha ay habaryartaa ku go'aamisay. meeshii baabuurtu ka baxayeen ayay degdeg u imaanayaan si ay baabuur u helaan. ninkan ayaa soo kaxaynaya kadibna waxa uu imaanaya ninkan gaariga wata waxa uu ku leeyahay hal boos ayaan u baahanahay laakiin waa uu ka waayayaa. gaarigan kale ayuu imaanaya waxa uuna ku leeyahay xagga sare ayaa bannaan balse Ifraax halkii iyadoo tagan ay arkaysaa ninkan askariga ee ku dhuftay ninka kirishbowga ah xabad waa la kala cararayaa. Ifraaxna waxa ay koraysaa baabuurkii kama bannaana boos aan ahayn xagga sare waa uu la dardaarmaya waxa uuna ku leeyahay borderka waxa kugu sugaya wiilkii ay habaryartaa ku soo dirtay isaga ayaan Addis Ababa ku geyn doonaa. xilli habeenimo ayaa la gaaray gaarigiina weli waa safar waxa uu ku soo dhacay checkpoint-gan ay dhigteen qolo burcada kadibna waxa lagu amrayaa inay ka soo degaan dhammaantood. gabdhuhu waxay leeyihiin halka ha istaagaan ragguna halka balse Ifraax kama soo degaysa xaggii sare mana arkaan waxaan isku dayaysaa inay isqariso. ninkan ayaa ku oranaya dhammaan waa inaa sharciyadiini keentaan kadibna sharciyadii ayuu ka urunaya waxa uuna ku shubayaa dabkan waxa uuna ku leeyahay qof kastoo idin ka mid ah waa inuu $10 keenaa maadaama aydan haysan wax waraaqa ah. waxay ku leeyihiin waraaqihii aan wadano dhow waa ku dhiibnay soo adiga gubay laakiin waa uu dafirayaa. dhammaantoodna waxa laga qaadayaa calaa qof $10. gaarigii uu soo dhaqaaqaya waxaana la gaarayaa xilli subaxnimo ah. waxa uu imaanayaa xuduudda gobolka Gedo uu la wadaago dhanka Ethiopia. gaarigii ayay kasoo degayaan dhammaan dadkii saarnaay oo dhan. ninkii dareewalkaana waxa uu ku wareejinayaa ninkan mukhallaska ah waxa uuna ku leeyahay gabadhan si ammaan ah waa inaa u geysaa Addis Ababa. Ifraax way soo dhaqaaqaysaa iyadoo aad u cabsan waxayna arkaysaa ninkan kadibna waxa ay gelaysaa gaarigiina waxa uu ka gudbay xadkii Soomaaliya waxa uuna ku jiraa xadka Ethiopia. safarkuna waa mid Addis Ababa toos ugu wajahan. Ifraax waxay fariisanaysaa kursigeedii balse in yar kadib waxa cilad ku timi gaarigii dhammaan gaarigii ayay kasoo degayaan. in yar kadibna gaarigii waa la hagaajiyay dib ayay ugu soo laabanaysaa Ifraax si kursigeedii ay u fariisato. ninkan ayaa ku oranaya waxba ha cabsan waxaan ku geynayaa Addis Ababa xaaskayga ayaa degan oo ah reer Muqdisho. Addis Ababa ayay yimaadeen
kadibna ballantii uu qaaday ayuu u fulinayaa waxa uuna keenay gurigiisii. Ifraax waa mid aad u faraxsan, balse in yar kadib waxa uu yimi ninkii ay habaryarteed ku soo ballamisay. Waxa uu ka soo kaxaynayaa gurigii, waxa uuna ku leeyahay waa inaan hadda baxnaa. Gaarigan tagsiga ayay soo qaadanayaan. Waxa uu ku leeyahay qabso sharcigan, waa baasaboorkaagii, kana waa tigidhkaagii. Waxaynu geli doonaa aeroboortka. Aeroboortkii ayay imaanayaan. Baasaboorka ay wadatana waa mid feeg ah. Aad ayay u cabsanaysaa. Qofkii ku xiga ayaa ka dhaqaaqaya meeshii, kadibna waxay u imaanaysaa naagtan waxayna u dhiibaysaa sharcigeedii iyo baasaboorkeedii. Waa ay fiirinaysaa. Nasiib wanaagse waxa ay u soo celisay baasaboorkeedii, waa ayna ka badbaaday in la fahmo. Waa ay soo dhaqaaqaysaa. Wiil kale ayaa soo kaxaynaya mar labaad, waxa uuna keenayaa diyaaraddii. Kursigeeda ayay fadhiisanaysaa. Diyaaraddiina waa ay ka kacday Addis Ababa, waxayna yimaadeen mid ka mid ah waddamada Yurub. Laakiin Ifraax maaha mid war u haysa meesha la joogay iyo meesha loo socdo toonna. Indhaha ayay taagaysaa, waxaana u harsan jeekin labaad si ay u gaadho waddankii ay u socotay. Isagiina waa ay ka badbaadaysaa, waxa ay fadhiisanaysaa halkan. Wiilka ayaa u keenaya cuntadan, way ursanaysaa waxayna leedahay cuntadan ma cuni karo. Cabitaankii oo keliya ayay cabaysaa. Waxaa la gaaray habeennimo, waqtigii transitka ayaa dhammaaday. Diyaaradda ayay dib u soo fuuleen, waxayna yimaadeen waddankii ay u socdeen. Wiilka ayaa ku oranaya soo dhaqaaq, maxaa meesha la taagan tahay? Si nasiib wanaag waa ay ka soo baxday, kadibna waa uu qoslayaa wiilkii. Iyadoo faraxsan ayay u imaanaysaa wiilkii, waxayna ku leedahay Minnesota ma joognaa. Laakiin waa uu ku qoslaya, waxa uu ku leeyahay maya, halkani Minnesota ma aha ee waa waddanka Ireland. Way soo dhaqaaqaysaa waxayna imaanaysaa immigrationkii si ay isku dhiibto. Kadibna wiilkan ayaa af Soomaali kula hadlaya, waa ay farxaysaa. Waxa uuna ka qorayaa dhammaan informationkii looga baahnayo dhan. Immigrationka waxa uu soo kaxeeyay Ifraax, waxa uuna soo saaray gaarigan tagsiga ah. Waxa uu keenay gurigan oo ay ku nool yihiin gabdho Soomaali ah. Waxay leedahay ma Soomaali ayaa tihiin? Ha ayay leedahay gabadhani. Laabta ayay isgelinayaan dhammaantood. Subaxnimadii ayaa la gaaray. Ifraaxna waxa la keenay cusbitaalkan si jeekin loo mariyo. Wiilkan Soomaaliga waa translator. Waxa uuna soo dhaweynayaa Ifraax iyo ofisaradan. Kadibna waxa ay gudaha u soo galayaan xaruntii. Ifraax waa loo yeerayaa, waxaana laga qaadayaa dhiigag. Waxaana la baarayaa dhammaan xaaladeeda caafimaad. Aadna ayay u walwalsan tahay. Wiilka translator ayaa la jooga. Gabadhan ayaa u imaanaysa waxaana ku leedahay Ifraax, waa inaad gashataa maradan, dharka aad qabtid oo dhan iska saartaa si baaritaan lagugu sameeyo. Dharkii ayay gashanaysaa Ifraax, waxaana la keenayaa sariirtan. Dhakhtarka ayaa u imaanaya waxa uuna ku leeyahay istaji, xaaladaada caafimaad kaliya ayaan rabnaa inaan ogaano. Dhakhtarkii waxa isku diyaariyay inuu baaritaan ku sameeyo xagga hoose ah. Waxa uuna gacmaha gashtay galoofyadiisii, laakiin Ifraax waa mid aad u walwalsan. Maradii ayuu ka qaaday dhakhtarkii, waxa uuna arkay wax uusan weligii arag iyo sida gabadhan loogu ciyaaray. Ifraaxna waxay gashay xasuus sakiintii FGM-ka loogu sameeyay. Dhakhaatiirta ayaa u imaanaysa waa ayna wareysanaysaa ilaa ay historigeedii oo dhan uga sheekaysay. Aad ayay u murugoonayaan. Ifraax waxa ay bilowday iskuulkan si ay u barato luuqadda. Luuqadiina waxa ay ku baratay waqti yar. Macallimiintiina aad ayay u jeclaadeen. Sidoo kale waxaa loo bilaabay galaas isaguna ah kombiyuutar si aqoonteeda kor loogu qaado. Ifraax waxay ku jirtaa maalin iyo habeen si ay u baran lahayd luuqadda. Muddo yar kadib markii ay luuqadii dhamaysay, waxa ay lecture u soo jeedinaysaa macallimiintii iskuulkeeda, waxayna uga sheekeynaysaa qisadii foosha xumeed ee soo martay. Wargeysadii caalamka iyo telefishinadii dhan ayaa duubanaya qisada gabadhan ku dhacday, waana la ilmeeyeen. Ifraax waxay abaabulaysaa mudaaharaad si ay u taageerto inaan gabar dama looga ciyaarin gabarnimadeeda. Iyada iyo tiimkeedii waxay magaalada dhexdeeda ku galayaan sawiradan. Ifraax waxay noqonaysaa caan. Waxa ay ka soo qayb gashay xafladan oo Barack Obama uu ku yimi waddanka Ireland. Waxa uuna ka hadlayaa xuquuqda dumarka. Ifraax waxay taagaysaa boorkan, waxa ayna ku qaylinaysaa cod dheer si xorriyadda dumarku ay u noqoto mid waarta. Adduunkii oo dhan ayaa caan ka noqotay. Qisadeediina waxay gaadhay meel kasta oo dunida ka mid ah. Ifraax waxa ay soo qaadatay gaari, waxaana casumay madaxweynaha waddanka Ireland. Waxa uuna aad ugu ammaanayaa shaqadii wanaagsaneed ee qabatay. Waxa uuna aad ugu ammaanay geesinimadeeda iyo sida ay u dhiiran tahay. Hadiyada ayay soo qaadatay. Ifraax waxay go'aansatay inay Mareykanka aado si ay habaryarteed u soo booqato. Waa ay wacaysaa habaryarteedna waxay u sheegaysaa inay iyadu tagtay Muqdisho. Hal mar ayay gadaasheeda fiirinaysaa waxaana taagan wiilkii waddankan keenay. Waxa uu ku oranayaa hadalkii aan hore kuu idhi oo ahaa in gabdhaha wanaagsan hadalkoodu aad u yar yahay. Waad iska ilowday, waxaana gashay inaad dhaqankeennii aad foolxumaysid, waddankaagina aad sumcad dishid. Way xanaaqaysaa wayna ka soo cararaysaa. Hal mar telefoon ayaa ku soo dhacay, waxaana soo wacay hay'adda UNICEF. Waxayna u sheegayaan inay u hayaan tigidh Soomaaliya ah si ay wax uga qabato guddiinka fircooniga ah oo ku soo batay kaamamka UNICEF-ka ay gacanta ku hayaan ee ku yaala magaalada Muqdisho. Waxa ay timi magaalada Muqdisho, kadibna waxa uu yimi gaarigan UNICEF. Waa la waardiyeynayaa. Ifraax markan sidii hore ma aha. Waxayna ogaanaysaa xaaladda iyo nolosha ka jirta halkan. Waxay imaanaysaa kaamkan kale. Kadibna waxay ku arkaysaa labada gabdhood ee aadka u quruxda badan ee ku ciyaaraya halkan. Waa ayna la ciyaaraysaa. Waxaana la gudayaa Jimcada dambe.
oo waxa lagu sameynaya gudninkii fircooniga ahaa. Waxay ka ballan qaaday inuu imaan doonto way ka soo tegaysaa waxaana soo raacaysaa gaarigeeda UNICEF. Maalintii xigtay Ifraax way soo dhaqaaqaysaa waxayna imaanaysaa guriga awoowaheed. Kadibna waxay arkaysaa awoowaheed oo fadhiya banaanka. Way u soo dhawaanaysaa. Kadibna way fiirinaysaa awoowaheed isaguna waa uu eegaya laakiin ma garanayo gabadhiisa ilaa ay u soo dhawaato. Awoowaheedna waxa uu gelinayaa laabta waa uu ku farxayaa in gabadhiisa ay u soo laabatay. Gudaha ayuu soo gelinayaa isla markiiba waxay weydiinaysaa ayeeyo. Waxaanu ku leeyahay ayeeyo waa xanuunsan tahay waxayna ku jirtaa qolka. Ifraax way soo kacaysaa waxayna imaanaysaa qolka ayeeyadeed. Waxayna u imaanaysaa ayeeyadeed oo sariirta jiifta. Aad ayay u fiirinaysaa waxayna arkaysaa inuu xanuun ka muuqdo. Ayeeyada ayaa kacaysa wayna arkaysaa wayna ku qaylinaysaa waxay ku leedahay ka dhaqaaq halkan. Ma raba in adiga ku arko. Ma waxaad doonaysaa inay weydiiso su'aashii ahayd maxaad gudniinka fircooniga ay igu samaysay. Way ka aamusaysaa Ifraaxna waa ay ka soo baxaysaa ayeeyadeed maadaama ay aad u xanaaqsan tahay. Dib ayay uga soo laabanaysaa waxayna soo raacaysaa gaarigeedii. Way soo dhaqaaqaysaa waxay imaanaysaa xarunta wasaaradda haweenka waxaana la kulmaysaa wasiirka. Waxay ku leedahay asbuuca dambe waxaa la gudayaa 2 gabdhood oo ku jira xarun kaam ah. Waxaana kaa rabaa inaad badbaadisid laakiin waa uu ka diidayaa. Ifraaxna way isaga soo tegaysaa iyadoo aad u caraysan. Dib ayay ugu soo laabanaysaa awoowaheed si ay hal meel ugu wada casheeyaan. Awoowihii ayaa ku oranaya waan ogahay dhaqamada xunxun ee aad bilowday iyo inaad ka soo horjeesatay dhaqankeennii soo jireenka ahaa. Ifraax isla markiiba wejigeedu waa isbedelaya waana qaylinaysaa waxaana ku leedahay anigu ma ahi Soomaali baasaboorkan ayaa wataa. cid iga hor istaagi karta xorriyadeedana ma jirto waa isku qaylinaya ilaa ay ka soo dhaqaaqday. Xeebtii ayay imaanaysaa iyadoo aad u murugaysan. Waxayna soo xasuusanaysaa waayahdii adkaaya nolosha soo maray iyo sida reerkoodu weli ugu adag yihiin in dumarka la dulmiyo. Jimcadii ayaa la gaaray Ifraaxna waxa uu soo dhaqaaqay kaamkii 2 gabdhood lagu gudayay. Waa u imaanaysaa waxayna arkaysaa gabdhihii oo loo diyaarinayo in la gudo. Waxayna soo galaysaa aqalka gudihiisii. Waxay ku oranaysaa waxaan rabaa inaan idin siiyo lacag laakiin waa inaad ii ballan qaaddaa inaan 2 gabdhood inta ay nool yihiin aan la taaban jirkooda. Laakiin waxay leedahay idima aamini doono. Waxaan rabaa inaad kitaabkan quraanka aad gacanta ii saartaan dhammaantiinna ii dhaarataan. Aabayaashii iyo hooyooyinkii dhammaantood waa ay dhaarinaysaa inaysan weligood gabdhahooda aysan gudayn. Way u dhaaranayaan dhammaantoodna kitaabkii ayay gacan saarayaan. Kadibna waxay siinaysaa lacagtii ay u ballan qaaday. Way ka soo tegaysaa Ifraax. 2 gabdhood oo aad u faraxsan ayaa ka soo daba ordaya baabuurkii ay saarneed. Ifraax waxa lagu asumay inay ka soo qayb gasho timaadana maxkamadda ugu weyn Yurub si ay uga jeediso qisadii xanuunka badneed ee soo martay iyo dadaalka ay ku bixisay inaan gabdhaha Soomaaliyeed la gudin ilaa ambassadorkii Soomaaliga ahaa uu laabta geliyo dhammaantoodna ay sacab tumaan. Daawadayaal filimkii dhamaanta intaas ku eeg yahay waana qisadii aad ka murugada badneed ee Ifraax soo qabsatay. Waan hubaa inaad ilowday inaad muuqaalka like saartid channelkana subscribe soo tiraadid.